صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر. صومالي وأفتخر، صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر. صومالي وأفتخر، صومالي وأفتخر. بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. برنامج كوبي fikirkaaga maanta waxaa idinla wadaagi doonaa boggan wada arkaysaan yani ciwaankiisa inuu yahay yani rich dad and poor dad. aabbaha taajirka iyo aabbaha faqiirka. qoraaga buugga waxaa qoray ninkii la yidhaha Robert Kiyosaki. runtii buugaag fara badan buu qoray, aad xagga dhaqaalaha aad uga sheekeeya, aad uga faalooda. buuggan iyo buugaag fara badan oo la yiraahdo ka mid ah yani stop acting rich, ha iska dhigdhigin ama jooji magarasa in iska dhigdhigto taajir. iyo buugga la yiraahdo The Richest Man in the Babylon, yani ninkii ugu taajirsanaa magaalada Babylon. runtii waxay ka mid yihiin buugaagta yani ka hadla ama ka faalooda inta badan yani economic ama dhaqaalaha. runtii buugaagtana waxay kula wadaageen ama ku sheegayaan mabaadi'da iyo principleska iyo afkaarta ama mabaadi'da loo sameeyo qofka markuu doonayno lacag sameeyo iyo wuxuu sameynayo habku marayo qaab ku marayo. runtii yani waxaa jirta laba erey, waxaa ereyga faqiir iyo ereyga waxa la yiraahdo broken ama qofka markuu waxba haysan busaarad markuu shiido yani busaaradu qofka markuu busaarad ku dhacdo lacag laan ku dhacdo waxa laga yaabaa inuu yahay in yar ku meel gaar ama temporary ah in muddo kooban ah. laakiin faqiirnimadu macnaheedu waxa weeyaan waa wax internal ah, eevihaad wax joogto ah magarasa mar walba qofka ma intuu ilaa intuu ka dhimayo faqi kaasa faqiir qofka markuu ayaa la yiraahdaa. laakiin sida caadiga in faqiir la noqdo in taajir la noqdo inta badan waxa la yiraahdaa waxay tahay doorasho, yani waa choice qofku dooranayo ikhtiyaari qofka asaga dooranaya noqdo taajir inuu faqiir noqdo magarasa. haddii jaraalo waxaa jira mentality-ga ama hab fikirka ama habka ay u dhaqmaan yani dadka taajiriinta iyo dadka faqiiriinta aad bay u kala fog yihiin magarasa. yani waxay leeyihiin caadooyin kala duwan, yani waxay leeyihiin hab dhaqan kala duwan ayay leeyihiin magarasa lagu kala garanaya markiiba. tusaale ahaan haddii aan laba saaxiibaanu soo qaadano yani wada degan meel hal wadan wada degan isku xaafadda isku iskuul wada dhigtay, haddana waxaan arkaysaa midkood faqiir buu noqonayaa midka kaletana wuxuu noqonayaa taajir buu noqonayaa. yani haddana waxay haysteen isla fursadda ay isku fursad ayay haysteen, yani midna wuxuu doortay inuu taajir noqdo midna faqiir ayuu noqday. aabbaha labadan qoraagu ka sheekeynaya labada aabbuu leeyahay, mid waa saaxiibkii aabbihii, midna waa aabbihii biological asaga dhalay, aabbihii asaga dhalay, midna waa aabbihii saaxiibkii. runtii labada aabbe midna waa faqiir midna waa taajir. mid walba wuxuu siinayaa afkaar kala duwan ayuu siinayaa, mid waliba wuxuu siinayaa afkaar isku mid ah laakiin haddana kala duwan ayuu siinayaa u sheegayaa. aabbaha faqiirka ah waa aabba taajir, aabbaha faqiirka waa aabba highly educated ah, runtii wax bartay, PhD shahaadada ku sareysa waxbarashada gaaray, waa nin Stanford University iyo Chicago University jaamacado badan ka soo baxay. always laakiin haddii jeer mushkiladdu haddii jeer wuxuu la halgamayaa financial, yani ayuu halgan wax ku jira dhaqaale ayuu ku jira magarasa. wuxuu hadduu markuu dhimanayo wuxuu dhimanayaa asagoona waxba haysan, yani biilka qaarkii ama lacagtii dee oo yani aan la bixin ayuu dhimanayaa. halka aabbaha kaleeto uu yahay ana weligii sideedaad ama galaaska sideedaad aanan gaarinba, laakiin haddana wuxuu waa maalqabeen, waa taajir lacag dhaqaale fara badan leh. markuu dhimanayana wuxuu dhimanayaa asagoo milyoneer ah, yani lacag fara badan ka dhintay ama dee lacagtiisa ku sameeyey waxyaalo fara badan oo dee sadaqooyin ama magaalooyinka lagu sameynayo ama meelaha lagu sameynayo ka qayb qaatay. runtii labadan aabe yani mid waliba wuxuu siinayaa afkaar isku mid haddana kala duwan. tusaale aabbaha faqiirka wuxuu leeyahay markuu la talinayo inankiisa markuu la hadlayo wuxuu leeyahay aabbe wuxuu leeyahay si fiican wax u baro, yani dhibco fiican yani grade fiican iskuul ka keen si aad u hesho company fiican aad u shaqayso. halka kale wuxuu leeyahay study hard, yani aad u dadaalo wax akhri si fiican u sameey, yani si aad magarasa dee company fiican aad adiga u hesho aad u samaysato aad u iibsato. halka aabbaha faqiirka uu leeyahay yani aad wax u baro, aad u dadaal si aad u hesho company fiican aad u shaqayso. halka kale tan wuxuu kaa dhigayaa aabbaha kale wuxuu ku siinayaa fikrad, wuxuu ku siinayaa habka taajir ku noqon lahayd, habka dhaqaalaha keligaa ku gaari lahayd.
halka keliga dhaqaale yani keliga taagana cidna ku xiran u heleed ay ku dadaalaya halka aabba faqiirku uu leeyahay ma awoodi karin wiligeena ma noqonayo riij ama taajir halka kale uu leeyahay waxaan noqonayaa taajir baan noqonayaa waan gaariyaa wax ama sameeynaya waxaad arkaysaa yani dadka la yiraahdo faqiirinta ama dadka la yiraahdo middle class ka macnaheedu waxa weeyaan waa dadka shaqooyinka fiican haysta yani lacag fiican de mushaar fiican ka soo qaata laakiin dadka u shaqeeya waxa u shaqeeyaan lacag bay u shaqeeyaan laakiin markaa weydiiso waxay ku oranayaan anigu ma xiisaanayo dhaqaalaha lacag ma xiisaanayo haddana waxay arkaysaa isagoo 8 saacadood ka badan maalintii soo shaqeynaya dadka faqiirinta ee middle class ka la yiraahdo waxay had jeer adooman u yihiin ama had jeer waxay ka daba cararaan had jeer waxay ku dadaalaan inay shaqaalo noqdaan inay magarasada ay meel ka soo shaqeeyaan oo mushaar u soo helaan sababtoo waxaad arkaysaa ummad waliba oo faqri ah yani aan waxba haysanin waxaad arkaysaa inay ummad aan lahayn wax sharaf ah wax karaama iyo cizi aan lahayn waxaad arkaysaa ummadii faqiirka in laga sameesto wax allaali wixii la doon laga sameesto aad arkaysaa maanta waxaad arkaysaa dadka maanta ama Soomaaliya madaxda u qaarkood ama inta badan lagu sheegay nimanka baarlamaanka sheeganaya in aad arkaysaa inay yihiin yani dad yani sharaftoodii anaan wax allaali waxay ka naxayaan waxaad moodaa kuwii ugu dhaqanka xumaa waxaad moodaa kuwii bilaa damiirka ah kuwii aanan naxayn magarasa aanan wax xataa cilmi lahayn baad leedahay inay meesha joogaan isla markaana waxaad arkaysaa in wixii la doon laga sameeysan karayo waliba dawladihii carabta kuwii u badowsanaa inay allaali wax ka sameeysanayaan yani waxaad arkaysaa muhiimaddu uu faqiirnimada ama faqiirnimada ama faqriga uu leeyahay ummaddan waxba haysan wixii allaali wixii la doon laga sameeysanayo sidaa daradeed faqiirnimada iyo taajirnimada waxa jirta yani khiilnaad badan ama farqiyo badan baa u dhaxaysa tusaale aabbaha ama qofka taajirka wuxuu ku dadaalayaa inuu helo hanti wuxuu ku dadaalayaa inuu sameeyo maalgashi wuxuu ku dadaalayaa inuu shirkado iyo wax sameesto wuxuu ku dadaalayaa dhaqaalihiisa inuu seefgaraysto wuxuu ku dadaalayaa lacagta uu helo inuu ka isticmaalo intii allaaliintii magarasa baahidiisa ay tahay ay ku dadaalayaa wixii aan baahidiisa ka badan inuu wax kale ku sameesto waxaad arkaysaa dadka mentality-ga faqiirnimada haysta waxaad arkaysaa waxooda in wax ku iibsadaan yani iibsigooda inuu aad u fara badan yahay in lacag bixintooda iyo lacag ku ciyaarkooda inuu aad u badan yahay waxaad arkaysaa ayagu iibsanaya yani waxyaalo aad u qaali ah waxaad arkaysaa ayagu iibsanaya dharka ama kilaadarka ama maxaa lahaa yani markada ama calaamadaha ama shirkadaha magaca leh inay iibsanaya waxaad arkaysaa ayagu ku ciyaar iska dhigdhigaya taajiriin waayo buugan wuxuu ku leeyahay iska dhigdhigan buu ku leeyahay inaad taajir noqoto isna sidoo kale dhaqaalaha ka sheekeyn wuxuu ku leeyahay jooji buu ku leeyahay inaad iska dhigdhigto taajir sababta dadka middle class-ka ama dadka dhaqaalaha inta badan aan dhaqaale xoogaa soo gal mushaar fiican meel ka soo qaata inta badan waxay iska dhigdhigaan taajiriin ba iska dhigdhigaan wax allaali wuxuu doonaya inay u muuqdaan inay taajir yihiin bay moodaysaa yani meedan dadka taajiriintana yani waxa laga yaabaa laba qof oo saaxiib ah ama laba qof ayaa mid walba wuxuu soo helaa $100 buu soo helaa kan faqiirka waxa laga yaabaa ama mentality-ga ama hab fikirka ama hab dhaqanka faqiirnimada leh waxa laga yaabaa $100 baa inuu markiiba wax ku iibsato ayaa dhici karaysa halka kan taajirka mentality-ga leh waxa laga yaabaa inuu $25 bishiiba inuu meel dhigto $25 markaad sanad meel dhigta lacag fara badan bay noqonaysaa daatana company buu sameysanayaa in yar buu sameysanayaa ugu dambeyntii wuxuu helayaa lacag fara badan buu noqonaysaa lacag bay u dhalaysaa sababta inta dadka taajiriinta lacagta ay sameeyaan lacagtooda ayaa u shaqeysaa runtii buugga inta kuma soo koobi karayno wuxuu xiiso badan yahay insha Allah halka ayaa ku soo gabagabeynaa وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر